السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan. Ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta waa Arbaco taariikhduna waa 29 bisha Luulyo sanadka 2026. Haddaba barnaamijkan waxaanu ku soo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay intaynu kala maqnayn. Qodobada barnaamijkan idinku soo gudbinayo waxaa ka mid noqon doona xuutiyiinta oo sheegay inay ka shaqaynayaan sidii ay ugu soo rogi lahaayeen canshuur maraakiibta maraysa baabul mandab. haddaba maxaa la gudboon dowladaha Djibouti iyo Eritrea oo halkaa iyaguna wax ka degan xaalku siduu ku dambayn wararkii ugu dambeysay arrimaha laga qoray ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa. Ciraaq oo si weyn madaxdeedu ay ugu kala qaybsameen weerarkii saakay wadajirka ahaa ee ay ku qaadeen Mareykanka iyo Sacuudiga. madaxtooyada oo si weyn u cambaaraysay weerarka lagu soo qaaday awlaadda Iiraan halka ra'iisul wasaaraha Ciraaqna barito Sacuudigu ay ku casuumeen dalkooda. sheeko la yaab leh iyo xiisada gudaha Ciraaq oo cirka gashayna waan idiin soo gudbin doonaa. Trump oo mar kale u hanjabay Iiraan sheegayna inuu weerar weyn ku qaadi doono Iiraan. qodobadaas ayaynu barnaamijka galabta ku soo qaadanaynaa intaan ku jirnana wixii warar soo kordha waan idila socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. waxaa dhammaanba bulshada lala socodsiinayaa meel kastoo ay joogaan gaar ahaan dalka Kenya iyo geeska Afrika iyo magaalada Nairobi inay jirto shirkadda caan baxday shirkadaha uga duwan xagga diyaarinta dhismayaasha dhaadheer oo waa shirkadaasi caanka ahi. waa shirkadda lagu magacaabay Emara Luxury Homes Limited ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya gaar ahaan Kilimani iyo wadada caanka ee lagu magacaabo Leilani Road. aad aragto wuxuu ka bilaabanayaa 4 bedroom DSQ, 3 bedroom DSQ iyo 3 bedroom DSQ iyo 2 bedroom DSQ. adeegii guri lahaa oo dhanna waa wataa. shirkaddu maanta waxay idiin soo gudbinaysaa qiimo dhibid aan ugu magac daray hoygu waa muhiim hanti yeelo oo soconaysa 5 bilood. hadda ka hor qiimo dhibidii aan soo celinay 2 bilood ahayd walaalo badan baa ka faa'iideystay oo dal iyo dibadba jooga. haddana mar labaad waan soo celinay. waxaan ugu baaqahayaa bulshada Soomaaliyeed ee adduunka dacaladiisa joogta inay ka faa'iideystaan. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. waxaa intaasi dheer in xaruntaasi French and Overseas Clinic ay ka howlgalaan dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh xagga caafimaadka, dadka Soomaaliyeedna si gaar ah ula shaqeeya. haddaba bulshada meel kastoo aad joogtaan way ka abaal sheegteen intii tagtay xarunta caafimaad ee French and Overseas Clinic ee adinkuna ma tagtaan. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena labaad maanta waa Arbaco. taariikhdu waa 29 bisha 7 2026. wararkii soo dhacay intaynu kala maqnayn ayaynu barnaamijka ku faaqidi doonaa iyadoo dhowr qodob oo aad muhiim u ah ay soo kordheen. marka hore waxaynu ku bilaabaynaa Trump oo hanjabaad cusub u diray Iiraan. haddaba Al Jazeera ayaa lagu qoray Trump wuxuu yiri waxaanu si awood ah u garaaci doonaa Iiraan. wuxuuna sidoo kale sheegay inuu Tahraan siin doono darsi aad u weyn oo aanay markaa horey u arag. haddaba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacada maanta waxa uu mar kale u dhaartay oo uu wacd ku maray inuu weeraro xooggan ku qaadi doono Iiraan, isagoo cadeeyay in Mareykanku uu isu diyaarinayo inuu Tahraan baro cashar aad u adag kadib weerarkii dhawaan ay ku qaadeen Iiraaniyiinta ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Urdun. hadal uu siiyay
telefishinka la yidhaahdo Fox News Trump wuxuu ku tilmaamay maleeshiyaadka ay taageerto Iran kansarka adduunka ayuu sheegay magaca ayuu isticmaalay isagoo ku nuuxnuuxsaday in howlgallada military ee dhawaan ka dhacay Ciraaq lagu sameeyay iskaashi toos ah oo lala yeeshay dowladda waddanka Ciraaq madaxweynaha Mareykanka wuxuu sharaxay in weerarkii dhawaan ka dhacay Iran uu ahaa mid lama filaan ah isagoo xusay in ciidamada Mareykanka ay haysteen daqiiqado yar oo ay kaga jawaabayeen inay kaga hortagaan gantaalaha Iran ay soo ridaysay hadalladan ayaa waxay muujinayaan koror weyn oo ku yimid xiisadaha military iyo siyaasadeed ee u dhaxeeya Washington iyo Tehran markii uu hadalka jeediyay Trump oo hanjabaada ah markiiba waxaa mar kale haddana cirka isku shareeray shidaalka caalamka haddaba waxaa la filayaa in Trump uu bal ka dhabeeyo iyo in kale way Trump shalay waxaa ku akhriyay ninka la yiraahdo Netanyahu faylal waaweyn asagoo wato White House ka galay nimanka Iran waa inaad tallaabada ka qaada nimanku waxay haystaan nuclear Jabal Fas waa inaad duqaysaa waa waxaan nabadda iyo ku ordaysi Georgia leeyahay ninkan odaga markay arkaanba warkiisa waa dafaasay telefoonka markay yihiin oo xogaan raga iska dhigaa laakiin haday fool isaga hor yimaadaan ninka Trump madaxu la laadinaya ninkan marka waxa leeyahay hadalkan adeega iyo dagaalka iyo qabqabta waxa ka keenay ninka Netanyahu ayaa arkay shalay marka hadda waa hanjabaya Iran waa aksana yeelaya waxaan jawaab ka bixin doonaa waan ka argudanaynaa askartii ay nooga laayeen Urdun meesha saddex leeba ku dhimataa lahayd maxay tahay askarta 200 oo ciidanka ilaalada kacaanka sheegayeen ma rura ninkan hadduu soo baraarugo wuxuu leeyahay askartiina laga dilaa weerayna meeqay dileen ayaga xisaab aan la soo koobi karin maalol badilaan marka halkaasoo maraya qodobka marka wuxuu ka mid yahay qodobada xiisada si abuuray cabsida si abuuray shidaalka adduunka rakiciyay way maalmo koor shidaalku xogaa uu soo dabcay sababtu maxay ahayd Trump weeraradii joojiyay wada hadal aan galaawiin shidaalku waa raqiisa xogaa yar Iran garaaca mayr cirku gala hada maanta cirku ku jira lagu leeyahay shidaalka qiimiis way sheeka timid marka warkaas halkaas markaa kaga gudubno qodob kale buu yimid nimankii xooti waxay leeyihiin cashuura qaadayna xagee ka qaadaysa baabul mandab ka qaadayna ahlan wa sahlan baabul mandab ha say wax u jiraan annaga meesha iskale ciddi soo marto markab kasto soo maro waxaan ka shaqeynaynaa daraasada inta laga qaadi karo waxaas Eritrea degan Djibouti joogta dawlado badan jooga meesha nimankan marka way soo jeesteen Iran waxay leedahay Hormuz ka qaada iyaguna waxay leeyihiin baabul mandab ka qaadayna labadii wado oo istaraatiijigeed qariiradaadi ku tusi doonaa waa yaabaysaa sheekada meesha ka socota haddaba markaan idin tuso telefishinka Al Jazeera ayaa goor dhow qoray wakaalada wararka ee Reuters ayay u sheegeen Xuutiyiintu inay daraasad ku hayaan qaabka iyo inta ay ka qaadayaan canshuur baabul mandab haddaba wakaalada Reuters oo soo xiganaysa warbixino dhanka gobolka ayaa waxay sheegtay jamaacada Ansaarullah Xuutiyiinta dalka Yemen inay hadda ka shaqeynayaan sidii ay canshuur ugu soo ragi lahaayeen maraakiibta ganacsiga ee ka gudbaysa koonfurta Bahrul Ahmar ama Badda Cas kuwaasoo markaa ay sheegeen inay ka qaadi doonaan lacago ay ku tilmaameen inay yihiin lacago rusuum ah ama canshuur inay ka qaadi doonaan jamaacada ayaa sheegtay dhammaan maraakiibta halkaa soo maraya baabul mandab ee halkaa ka faa'iideysanaya inay markaa bixin doonaan kuwa shixnadaha wada ee ganacsiga ah lacagta canshuurta marka waa runtii sheeko cajiiba soma waa sheeko yaab leh
وشيكا رنتي علوس أنا إذا تسو مركا خريدة مركا روح إذا تسنيا باب المندب كلي سنة إذا تسنيا أنت الدولة ذود هلكا وحكوله شوكتا مركا إلي إنما كان عشورها كقاضي هذا بركا إذا تسو وركي وقدبية هذا باب المندب وماشن يرتع يمن حاجة كسارتهاي جيبوتي هلكا كسارتهاي إريتريا هلكا شوكتا suudaan iyo koray sii xigaan dhankan kale hoos marka loo baxana Soomaaliya ayaa soo xigta marka meesha yartaa Djibouti-aba uga dhawba sida hadda muuqata khariidada Yemen iyo Djibouti ayaa halka wada saaray Eritrea way ka durugsan tahay marka khariidadaas marka waa halkaas khariidadan kale sida ay rabaan marka Iran iyo Houthi waa sidan labada meel ee calaamadaysan ee goobaabinta guduudan la geliyay dhankan soke waa Yemen iyo Bab al-Mandab iyo waa dhulkan xagga shishana waa meesha la yiraahdo marinka Hormuz labada meel waa laba albaab waa u jeedaan badii labada meel oo laga galayay wadamadii Carabta iyo wixii oo dhan halkaas marka waxay rabaan kuwaas inay halka canshuur ka qaadaan kuwaana halkan canshuur ka qaadaan iyaguna marka waa sheeko runtii yaab la waaye waa arki doonaa kulay jawaabaha ay bixiyaan dawladahan kale nimankan qorshaha ay wadaan qodobka isaguna halkaasaan kaga gudbay qodobka kale ee ugu dambeeya barnaamijka nimankii Ciraaqiyiinta dhexdoodii ka dhex tafatay waa ishayaan saakay weerar wada jira Mareykanka iyo Sacuudiga waxay ku qaadeen ميليشيات شيعة أو إيران أولاد دي أهو ليرادو الحشد الشعبي ليرادا الحشد الشعبي وميليشيات دولة العراقنا أيضا أوه إيران أولاد دي أهو نمكا سو مركزاك حرمو ذا لو يرددنا ولا قدلي ترك لنا ولا يدعوان madaxtooyadii Ciraaq marka aad u xanaaqday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxawaaye ra'iisul wasaaraha awood badan dastuurka Ciraaq laakiin madaxweynuhu protocolaadka iyo waxa kan hawlahan u qaabilsay madaxweynaha marka aad uga xanaaqay waxa wadankiisa ka dhacay haddaba marka hore aan idin tuso sheekada sida ay u dhacday madaxtooyada Ciraaq ayay leedahay Al-Jazeera si kulul ayay u cambaaraysay xarumaha xashdu shacbi ee la weeraray haddaba waxa leeyahay madaxtooyada Ciraaq waxay aad uga carootay oo ay u cambaaraysay weerarada lagu qaaday xarumaha ciidanka la yiraahdo al-xashdu shacbi ee Ciraaq waxaana la sheegay halka inay ku dhinteen askar kuwa kalena ay ku dhaawacmeen haddaba madaxtooyadu waxay sheegtay in weeraradaasi ay ku tilmaantay inay ahaayeen kuwo xadgudub ah oo aan la aqbali karin waxayna sheegeen inay tahay mid meel ka dhac ku ah qarannimada Ciraaq iyo muassasaadkeeda ama hay'adaheeda amniga ee rasmiga madaxtooyada waa madaxweynihii warkaas u qaad saakay Sacuudi Mareykanka waxay nagu soo qaadeen waa wax meel ka dhac ku ah qarannimadeenu leeyahay ciidankan waxa leedahay al-xashd ash-shacbi waa ciidan Ciraaq ay leedahay awlaadii Iran iyo waxa kan iyo aday ku taala annaga Ciraaqiyiin way u leeyahay dadkan Iran haday rabtaa taageerto laakiin dad Ciraaqiyiin la laayo ma banaanu leeyahay way sheekada kale marka meesha taagan waxay tahay maanta oo Arbaca ayuu ka ballansanaa ra'iisul wasaaraha Ciraaq inuu Sacuudiga tago markii weeraradan waxaan dhaceen oo dib u dhacay laakiin hadda wuxuu leeyahay waa tagaa bari khamiista barita Sacuudiga tagaa heshiisiya la soo saxiixana maartay Sacuudiga yeereen ninka Sacuudiga ku xiran yahay Mareykanka hadda dhowna Mareykanka ku yimid waa ninka prime ministerka marka waxa leeyahay prime ministerkii madaxweynihii waa kala socdaa madaxweynihii waana la ku soo duulay xadgudub uu sameeyay kana wuxuu leeyahay si fiican ay yeelan Sacuudiga Mareykanka marka sheekadu marka waa sheeko halka baraysa Iran si kulul ay u cambaarays awlaadeedii lagu taabtay ee Ciraaq wax la aqbali karba mana ka yeeleen Sacuudi Mareykan inay markale ku laabtaan marka sheekooyinkaas ayaa soo kordhay barnaamijkeygii labaad inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa fakarkiina iyo aragtidiina waa noo muhiim soo qora asxaabay inta aan markale kulmayno barnaamijka fadlan like gareeya oo share gareeya
haddaad nagu cusub tahayna subscribe ka samayso youtube-keena facebook-gana follow garay inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo